Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu og yahay qalbigaaga inta aadan hadlin ka hor. Ooy sida aad doontidna u ooy. Mar walba waa midka ku maqla Allah. Mar walba Allah subxaanahu wa tacaala wuu ku maqlayaa. Waxaa la hubaa oo xaqiiqo ah inuu Alle subxaanahu wa tacaala kuu naxariisanayo mar walba haddii aad weydiisato aadna gacmaha u taagato. Tusaale ahaan, ka waran haddii uu ku yimaado cunug yar uu hortaada ku ooyo mar iyo mar labaad, kadibna uu qayliyo, miyaad u naxariisan lahayd? Waxaa hubaal ah inaad u naxariisan lahayd. Ka waran naxariistayaasha midka ugu naxariista badan oo ah Allah subxaanahu wa tacaala. Sidaa darteed, haddaad doontid ooy, xataa haddii uu habeenkii kugu dhammaado murugo, kadibna uu soo galo habeen kale uu murugihii kuu sii joogteeyo, waxaad fiirisaa samada, waxaadna dhahdaa yaa Allah irxamnii. Allahayow ii naxariiso. Allah subxaanahu wa tacaala waa midka xaqiijiya guusha qofka. Allah subxaanahu wa tacaala waa midka u xaqiijiya bini'aadanka waxa ay weydiistaan. Allah subxaanahu wa tacaala waa midka qaada murugaha iyo ghammiga. Allah subxaanahu wa tacaala waa midka zuuliya murugta oona guda daynta. Allah subxaanahu wa tacaala wuu jecel yahay qofka asiga la hadla. Waxaa ku imaaday athar addoonka haddii uu yiraahdo yaa Allah, Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay labayka cabdii, waan ku ajiibay addoonkaygiiyo. Sidaa darteed, mar walba aad dareento caryiri iyo murugo, Allah subxaanahu wa tacaala bari. Mar walbana waxaad noqotaa mid Alle subxaanahu wa tacaala ku xiran.